قبيلة أوران إسو تغنان إن أنت رايون قبيلة أوران إسو تغنان تلكو بينو لو تايلية تلكو بينو لو تايلية قوية ويا لو تتعالي محاتقان قوية ويا لو تتعالي محاتقان ولو تبتميا محاتقان طريقة waxaa in badan la isweydiiyaa talow maxaa aqoontu saameyn ugu yeelan weyda nolosha meelo badan oo had iyo goor ay dhalinyaradu isugu timaado ayay isweydiisaa tirada horta maxay saameyn ugu yeelan weyda aqoontu nolosha marka dadka isweydiinaya inta badan waxa ay kasoo qaadaan sidii wax aqoonti aanay saameynba ku yeelan noloshii midiyadu waa xaqiiqda saameyn way ku leedahay oo de in badan bay aqoontii noloshii wax ka bedeshay oo ay technology-gii wax ka bedeshay oo ay caafimaadkii wax ka bedeshay oo ay waxbarashadii wax ka bedeshay sida loo adeegsado biicadda ayay wax ka bedeshay kulle way leedahay laakiinse waxaan u malaynayaa dadka su-aalaha isweydiiyey inay ka wadaan waxoogaa way quursanayaanoo sidii la rabay ayaanay aqoontii noloshii saameyn ugu yeelan marka kama ahun waxbaba saameyn kuma yeelan waxay ka wadaan يعني سيدي الربي سمجل أيان النرش سامين وياه سمجل أيان البلشري سامين وياه سمجل أيان سامين وياه هجامنتي سمجل أيان سامين وياه هرمرك معناه إذا ما سامين بمياه لكن سيدي الربي معناه وضع قوي بل حتى أينو دور بنعكس كتابنا صوابتك كنت إن أنا سيدي مجل هيد إلى الربي أقوم سامين وياه النرش أما بلشري arrinta koowaad sabab u noqon karta arrinkaas wuxuu yahay halka hore ee bilowga ee aqoontu ka bilaabatay innaga inooga bilaabantay halka inaga soo gashay de innaga mujtamacaan ayaa ahayd meel qalloocda oo sida nimanka rabna aan ahayn marka qalloocaa soo galay iyo warabkaa soo galay aqoonta bilowgeeda hore aqoontan waxaan sheegayaa casrigeeda xadaaradii horumarkii technology-da siday nagu soo gashaa qalooc ahayd qalooci muu saxmin ilaa iyo maanta aynu socono qalooci baana maanta keenay in aqoonteenu meelo badan aanay saameyn kaga yeelan nolosha sidii aynu rabnay qaloocaasi muxuu yahay aqoontan casriga inaga de gumaysiga inoo keenay hortiimeyna aqoon dee aqoon sidaas marka dee laga reebo ama aqoonteena diiniga ama aqoonteena dhaqanka marka laga reebo aqoontan kale magaalada wax lagu kala rogrogo ama siyaasadda lagu rogrogo ama dhaqaalaha lagu rogrogo dee hore umayno aqoonta gumaysigu baa keenay gumaysigu markuu keenay waxa uu inoo keeno inaga qayb ka mid a aqoontii iyo sidii loo adeegsan lahaa gumaysigu waxa uu rabay in dadka soomaalida ay bartaan aqoon yar oo kooban oo ay ugu adeegaan shaqooyinka gumaysigu markaa dalka ka hayay haddaa imika dib u raacdo dadkii hore ee dhaqankeena lagaga sheekeeyo ama aqoon ama shaqaale gumaysigii la shaqeynaya ama dowladihii waqtigaa jira gumaysigii la shaqeynaya marka laga sheekeynayo inta badan waxaa laga sheekeeya qofka u sarreeya wuxuu ahaa karaaniga waxaa darajada ugu sarreysa la gaaro waa meel saru ahaa hebel karaani mu noqday heblaayo ama karaaniyad bay noqotay waxa weeyaan yani halka ugu sarreysa la gaaro karaaniga muxuu ka waday maadaama waqtigii gumaysigu joogay ee uu dalka deganaa dadkan iyo gumaysigu aanay is afgaranayn uma baahna dad u shaqeeyo oo dee kala caawiya qoraalka weliba karaaniga la yaqaan waxaa karaani teebka u qora oo teebka garaaca oo garaaca waxa uu gumaysigu rabo inuu ama uu geliyo recordka geliyo faylka geliyo ama uu cid u diro karaani u garaaca aqoon kale lama baran jir waxaa intaa soo dhaafay oo xilligii gumaysiga aada loo yaqaanay turjumaanku waa maxay waa qof laba luqadood isku bedelaya oo hebel sida ninku yidhi afkii kale ugu bedelaya qofkana wuxuu yidhi afkii kale heblaayo ugu bedelaya turjumaanku wuxuu ahaa isaga laftigiisa marka laga soo qaado soddonnadii afartanadii kontonadii sanadihii waqtiyadaasi shaqooyinka ugu waaweyn ee qofka soomaaliga markaa noolo halkaa ka qaban karaya marka yani gumaysiga markaa dee carrigoo dhan xukumaya dhinac kastaba turjumaanka iyo karaanigaas waxaa labada shaqo ee ugu muhiimsan haddaba gumaysigu dadka muu beri jirin aqoon hore lagu mariyo dadku muu beri jirin aqoon biyaha lagu safeeyo
dadka wuu bari jiray dhakhtarro badan oo sidaa usii shaqay xoogaa waa bari jiray aasaasiya tii unbay nala soo gashay dowladnimadii markii gobonnimada la qaatay ee gobonnimadii aynu helnay ee aynu xafiisyadii iyo dowladdii inagu qabsanay noocii tacliintii xilligii gumaysiga socotay ee ahayd in aasaasiga ahayd in amayn xafiisya lagaga shaqeeyay iyo wax aan dee intaa ka fogeyn ayaa waxaynu horta kusoo urureen markaa tii unbaana sii socotay mar bay waxoogaa isbedeleen oo markii allah naxariista siyaad barre iyo dadkii ku xeernaa ay dowladnimada qabsadeen ayaa waxa ay isbedeshay in tacliintii farsamooyin meelaha qaarkood loo bedelo oo farsamooyin ay sameeyo dowladda kacaanku markaa waxay xoogga saartay in warshadaha iyo beeraha ay iskuullo u samayso si ay usoo saaraan farsamo yaqaano tacliinta inta kalena waxay ahayd propaganda loogu talagalay inay dadka lagu abaabulo oo kacaanka lagu jeclaysiiyo intaa yare farsamooyinka mooyaane iyada lafteedu wax badan ismay bedelin tan imanka maanta socota waa tii unbaa socota oo tacliin baa leedahay 4 sano 5 sano 6 sano halkii hadaf cad oo laga leeyahay maanta tacliinta dalka lagu dhigtaa ma jiro hadafkii baan caddayn dadku marka la doonayo in siyaasad la dejiyo ama istiraatiijiyad la dejiyo waliba gaar ahaan deemka inagu waxaynu ka hadlaynaa aqoonta iyo tacliinta marka hore aqoontaba lama soo hadal qaado lamama soo hadal qaado dadka ku shaqada leh lama soo hadal qaado dadka manhajka dadka caadiga fadhiisto ee horta maxaynu rabnaa mujtamac sida weey ardaygan rabnaa waa arday nooc ma dhalinyarada rabnaa waa dhalinyaro nooc ma waa dhalinyarada rabnaa inay maxay ka shaqeyso ilaa wixii isriyanayeen bay ilaa gumaysigii ilaa gobonnimadii ilaa iyo dowladda siyaad barre ilaa iyo imika isla keen soo galay una waxba la isma weydiin oo boor horta qof nooceen rabnaa dee ilaa horta taa la isweydiiyo aad bay u adkaanaysa taa xagga uga soo bax mid kale iyada imanayso ah dadka ibn aadamka waa la sameeyaa ilaahay markuu sameeyo oo qofka sameeyo ka bacdi qofka ibn aadamka waxa sameeya dowladihiisa waxa uu yeelaa qaabkii ay rabeen ayay ilmanimo markaa uu yar yahay ilmaha yar ayaa la soo koriyaayo oo laga dhigaa qofka nooc xun haddaan la soo qorsheyn samayska ilmaha yar iyo sidii u koriyay iyo sida aqligiisa u fakirayay saasoo dhan way adkaanaysaa laakiin inagu su-aal isweydiino bal naga dhexdeena horta maxaan tacliinta u baranaa anigu maxaan u bartay adigu maxaad u baratay dadkan kale imika yaacaya boqolaalka kun ee isdaba socda iyo bugaagta sita maxay u barteen tacliinta marka horeba inagu uma barano saameyn ha yeelato umana barano wax ku bedel umana barano inta badan in yar dhamaan sheegin hoggaan ku qabo uma barano adduunyada kula tarta inta badan tacliinta inagu waxnoo baranaa ku shaqo tag oo mushahar ku qaado oo wax ku cun horta aqoontan inteena badan barano ee waqtiga naga qaata sida guud taasay u badantay tacliin baro dugsi hoose ka bax mid dhexe gal dugsi dhexe markaad ka baxdo dugsi sare gal dugsi sare markaad gasho qofkii ay fursad u saamaxdo jaamacad gal marka jaamacadda ka baxdo aad gasho shaqo gal shaqada markaad gasho mushahar ka qaado mushaharka markaad qaato nolol wanaagsan gal haddaad guri ka dhisan karto ka dhiso haddaad gaari ka iibsan karto haddii aad gabadh tahay wiil ka guurso haddaad wiil tahay gabadh ka guurso inaha yara kooban ee sawirkuba iska kooban yahay ayaan horta marka hore u barana umaynu baran wax ku bedel umaynu baran faqriga dadka kaga saar umaynu baran reer miyigan reer guuraaga ee daalay u sameyn nolol degan oo ceelo lagu qod umaynu baran dhulkan saxraaga geedihii ku ayaan hala ilaaliyo dabargoynta iyo nabaad guurka geedihii ku dhacaya oo waddanka barwaaqaha laga dhigo umaynu baran dooxyada rogmaya marka roobku soo do sidii loo xidhi lahaa ee dhaamam loo samayn lahaa ee biyaha loo qaban lahaa ee looga faa'iidaysan lahaa umaynu baran baddeenan gees ilaa gees iska daadsan iyo waxa barwaaqo iyo nimco ku jirta sidii loogaga soo saaro uma barana waxaynu baranay ku shaqo tag waxoogaa kusoo qaado naftaada ku kori hadduu waalidkaa nooliya wax ka sii haddii kaloo cid tolay ama asxaabi kaasoo gaadho wax uga turtuur laakiin intaasaynu baranay intaa kooban haddaba inagoo marka horeba tacliinta intaa yara kooban usoo baranin wax ku bedelba usoo baran ayaan haddana rabnaa markay noloshii soo galno inay wax isbedelaan dee isbedeli mayso waa tan kaa qaldan marka hore aad niyadaada loo soo sheegay inaad isbedel iyo saameyn samayso marka hore aad niyadaada usoo sheegto inaad beriis yaran ku cununta tacliinta intii yareedna de waad ku haysaa waxa aad niyadaada ku qabato kul walba halka aad adigu niyadaada ku qabato bay awooddaada leekaas
niyadaada haddaad ku qabato ku yaro shaqo tag in yaroon intaasuu bay noqonaysa haddii aad kusoo tala gashay wax weyn ha noqoto ida lafteeduna saasay noqonaysa arrimaha kale ee tacliintii diiday ina ay noqoto ama ay yeelato saameyntii la rabay waafiga ahayd waxay tahay innaga dadkeena tacliintu dadka way kaa dhex saartaa ummadda way kaa dhex saartaa jaarkii horeed la soo kortay way kaa dhex saartaa dadkii hore ee aad iyo deegaankii aad taqaanay way kaa dhex saartaa adoo miyi ku dhashay oo miyi ku koray oo ilaa 12 jir ay raacayay oo dadka la soo noolaayo fursad yar oo tacliin helay dib dambe isugu noqon maysid guri miyigii ka dhisan maysid dadkii booqan maysid haddii nasiib gaadhay kula sii maraado meel u socdo maan sheegay dadkii horta way kaa dhex saartaa حتى هذا المجال أخيرا مجال كورتين وهذا الطفل المجال مرة الله لما تعلمت هي طب قبك وقليل كبر بك وقليل تذكر وتكسر رئيسه تذكر عادي يمرك هو بس لوقت شو قال تمرت يبينين قال حولا يبينين قال معلمين تهاين قال ورطة هاين قال شاد ليدا هاين هو ديرك من هذا كوي يبينين بسس كقال ودينا وحصل نوع تكسر رئيسه ما هلا يرى دورة تكون نوعتين كشك أيام بتكشك كيسه meelaha saad kafeega shaaha u doondoonata qoliyaha saad la hadashaa luqadaadi way isbedeshay luqadahan joornaaladii lagu qoray idaacadaha ayaad dhegeysataa luqadahan caadiga suuqa laga hadlo kuma hadashi dadka waad ka sii dhex baxday hadduu ilaahay wax ku siiyado xoogaa heshana xitaa xaafadaha aad ku sii kortay guri kama dhisatid xaafado kale aad guryaha ka dhisataa meelo kale aad degtaa dadkii horta saameynba kuma lihid dadkii waad ka sii fogaatay dadka laftigiisa waxoogaa tacliintana been bay kuu sheegtayo sibaad naqaska kuugu dhegan yahay sibaad dhibi kuu haysataa sibaad adiga dhibbanaa tahayba sibaad adiga laftaada isku buuqsan waad iscajabisay dadkii waad ka fogaatay hadhow baad leedahay maxaa saameynta bal imika hadduu u fiirsto meel fog baa tegi waxaa siyaasad la isku wada haysto ee koona ilaa koona la isku wada haysto bal u fiirso meel foga sii tegi ama ha noqoto waxa dalka gudihiisa ka socda ama meel kale ha noqoto odaybaa loo yeedhaya cimaamadiisi sita odaygii bay naguna kolba ka daba qaylinayaan maxaa oday hebel sidaa uu yidhi muxuu suldaan hebel sidaa yidhi muxuu boqor sidaa yidhi dhinac dee hinaasa ay naga hayaan waxaan leenahay innaga wax baranay maa lana garto waxnaga la noo yeedho maxaa lagu yidhi taa lagu garan maayo saameyn ma lihi dadkii faraha kuuguma jiraan waadigan ka fogaaday cilmigaad baratay wuxuu ahaa inuu dadka kuu dhaweeyo because aqoonta waxa u baahan yaa u baahan markaad aqoon barato aqoonta waxa u baahan kuwa aan aqoonta lahayn marka waxay ahayd aqoontan aad baratay marka sii badataba inay kuu sii dhaweyso kuwa aan aqoonta lahayn ilaa shaqadaada halkaasay taallaa adiga shaqadaada waxay taallaa kuwa aan aqoonta lahayn ilaa kuwan aqoonta leh aqoon bay leeyihiin way isdabarayaan iyagaa garanaya waxay ahayd inaad u tagto kuwan dooxa ka dhaansanaya biyaha sida loo soo saaray inaad xaafadii tuuladii yareed reerihiinu degi jireen inaad tagtaabay ahayd ood ceelasha sida u qotaan iyo wax ka soo barto injineer biyaan soo barto baad leedahay hargeysiya booramiya burciya deynta nimaad ku warwareegaysaa tuuladaadii dib uma tegin tuuladaadii wala dhoobada ka cabtaa ballagii dhinacna lo-da kaga kaadsiisay dhinacna xoolaha ka cabayeen dhinacna dadku ka cabayeen baa dee weli laga cabay dee maa tegin waxaad doonaysaa dadkii inaad saameyn ku yeelato caqiladan iyo dadkan iyo odayaashan cimaamada soo qaatay dee saameyn bay yeesheen dadka ag fadhiyaan shaahi la cabaan maalin kasta way la joogaan qaadhaanka la ururiyaan maalinta inay guursanayso ama inan reerkooda laga doonayo cimaamada loo soo dhiibaa meesha fadhiya inantay bixiyaan waxoogaa yaradkana way ka qaataan maalinta iyagu ay inan doonayaan way sii raacaan way kala qayb galaan adigu haddaad soo raacda laftaada adoo yaro gooni u taagan mooyaane dadkan kuma jirtid dee saameyn waad yeelan kari weyde qofka siyaasadda ku jira ee maanta madaxee adiga kuma yeedhaya dee adiga because cidaad wadato ood soo abaabulaysood maanta isku soo dubiridaysaa ma jiro laakiin odayaashan iyo raggan kale iyo dadkan dee ka agdhowey siiriga hadday ku dhuftaan waa laisku soo yaacaya dad bay wataa marka horta aqoontii way kaa dhex saartay dadkii saameyn kuma lihin bulshadii waad ka dhex baxday xaafadii aad deganaan jirtay waad kasii baxday dhar iyaga ka duwan baad gashataa joornaale iyo waxbaad ku akhridaa siyaalo kala duwan baad u warantaa waxaad doonaysaa in lagu garto inta caburisantood meel istaagto tiraahdo aniga hal lay garto inaan aqoon soo yeeshay oo maaragtay inta halkaa laga garto qalbiga dee lagaa garan maayo aqoonta waa inay dadka ku dhaweyso horta taasi dadka way kaa soo dhex saartay aqoontu innaga markaadna eegto sibaad mooda kalsoonida inooga qaada sibaabad mooda kalsooni darraba inayna hayso oo ka aan aqoonta lahayn baabayna caddaynayaan kalsoonigu iska buuxaa moogta kalsoonigu iska buuxaa halkaasuu isa soo taagayaa arrin la isku haysto oo ama ummaddaa ka dhexeeya ama wax kale oo labadaa dhinacees haystaa dhinac soo kiciyey isagoo kalsooni ka buuxda hadduu doono waxaan
laakiin kalsoonida ku jirta kalsoonidiisa way buuxdaa ayuu ka hadlayaa koow laba saddex ulay sidaa la yeeli maayo sidaasaa la yeeli hadda waxaa laga hadlayaa haddii doonto waa aqoon waxaa laga hadlayaa dhaqaale waxaa laga hadlayaa qandaraasyo la bixiyo la isku haysto waxaa laga hadlayaa shirkado waxaa laga hadlayaa hanti la isweerarinayo waxaa laga hadlayaa sharci doorasho meel la kordhin maayo waxaa laga hadlayaa arrimo saas arrimahaas waxaa kii la weydiin lahaa qofkan aqoonta leh qofka aqoonta leh marka hore kalsoonida ku yar waxa uu kana aqoonta lahayn in dhacdaynaya intuu cimaamadiisa soo qaata bukuuradiisa soo qaata ka hadlay kana aqoonta leh kama hadlayo because markiisa hore si meel uu ka bahdilay bal ka warra qofka aqoonta leh oo isagoo aqoontiisii yeeshay oo jaamacada ka soo baxay oo horumar sameeyay intan qofka kale ee odaygii yaqaana odayga laftigiisa adeegsada gacan yaro u noqda ama isaga laftigiisa gacanta soo qabsada dadka ula raaca waxaan fahmay sida dadku u shaqeynay cilmi sida u sii badan ma waa cilmi yaro kooban laakiinse kalsooni kuma jirto waxa uu rabaa un afartan buug soo dhigtay in lagu ixtiraamo lagaga dambeeyo in isagu talabad wuxuu rabaa haddaba qofkan inta lagu soo tabcay waalidkii kasako dowladda ku soo tabacday ummadda ku soo tabacday cashuurtii dadka wax lagu soo baray 20 sanadood wax la soo barayay isaga laftigiisii baa raba qofka hadda qaantaasi ku maqantay ee 20 sanadood ee qaanta aan lagu leeyahay wuxuu rabaa inaad garanaysaa qofkaasi wuxuu rabaa in isaga la garto oo weliba wax loogu sii daro loo abaalgudo shaqo wanaagsan la siiyo oo wax loogu sii daro oo magac loogu sii daro waa aqoonyahan la yiraahdo oo la sii bumbu warada lacag lagu leeyahay ada xoolo lagu leeyahay ta soo ku maqan ada hadimkiina deenkiis ka soo guddo dib u noqoto oo wax soo dhisto oo wax bixiso dee waa rutay qofka 20 sanadood wax la soo barayay ee wiil ama gabadha iyo qofka kale muwaadinka ah ee 20 sanadood aan si dowladda waxba ka qabin iska xamaalinay dee midkii qaan lagu leeyahay ila kiiska xamaalinay cid xukuma lahayd in waxba ma soo sii lacag kuma soo bixin macallimiin lagama bixin iskuul looma dhisin oo daar looma dhisin buugaag laguma bixin sanado badan laguma soo daalin waxbarasho sabuurada tamaashiiro waxa soo dhan laguma soo daalin kana waxba baran waxa soo dhan kuma maqna kaaga wax bartay qaamba ku maqan adiga ka qaanta ku maqnay la rabay lagu leeyahay soo bad oo orado sanad iyo 2 sanadood oo weyn ka soo shaqeey oo beeraha ku yaala beerta soo qod oo lagu dhaaf banka gariyaadka tag oo lagu dhaahdo tawga cad orado tawga ka soo shaqeey oo lagu dhaahdo yaani bariga tago orado caynaba ka soo shaqeey lagu leeyahay in qaamba lagu leeyahay adiga laftaada buuftaadaysa inagu gartaa doonaysa kalsooni kuguma jirtaa dadku abaabush horta taas saameyn la'aanta laftigeedii qayb weyn ka ah iyada laftigeeda waxa iyada imanaysa aqoontu meel bay naga yaraysaa aqoonta in yarun baa inoo muuqato shaqooyin marka dad qof caadi weydiiso oo tiraahdo okay aqoon baad soo baratay maxaad rabtaa inaad shaqayso wuxuu ku sheegay shaqooyin yar yar oo kooban ama siyaasaddu ku sheegay wasiir iyo wasiir ku-xigeen agaasimo guud xisaabiye maareeye ilaa 20 shaqo aan dusha ka qaybno intooda badan ama hunguri ama magacuun ku jiro ayuu qofku rabaa iyo shaqooyin kale oo ama hay'ado ama wax la mid ah waxa soo rabaa qof kasta oo maanta dalkeena ku nool ma jiro qof u diyaar farsamada magaalada joogteena kuba shaqaysto bal adigu ka war waa mid subxaanallah waxa daymo waxa ka soo qaataa dabalka magaalada iska lugay xareegtaan dadka una qolob basasbay wada qolob makhaayadada qolob bakhaar raashin kala dhigayla qolob tagaasibay wada qolob waa xamaali islaani waa khudradley mid waa hilibley mid kale meel kale meesta mid hooyadii waa macallimad mid aabihii waa maamule iskuul askar bay qolo tahay dadka shaqooyinka socdo dhama wada xad dowladda meel yar looga shaqeeyo arday haddaad ku tagto jaamacad dhiganayso tiraahdo inta midna ma rabta intooda badan ma yahay qofna ma rabo shaqadii aabihii iyo hooyadii ee isaga iyo sagaalka caruur kale lagu soo koriyay inuu soo ka shaqeeyo qofna ma rabo wax kala dheer raba wax kale oo aynaan garad marka hore tacliinta lafteeda kalsoonida bay ka qaatayba noloshii wax kale qofku raba qofku soo dhamaaya baaqi bakhaarka lahaay dukaanka lahaay sida wuxuu soo koriyay sagaalka caruur ku soo koriyay hadda ninka dukaankiisa tagto si casriyayso oo yaro computer ku xidhood alaabo wax ku xidhood shaqaalo u yeesho ama noqdaaba shaqo caalami ah soo dhamaayo qofkiis odhamaayo beertii yareeyda khudradda aabaha ka soo goyn jiray ama xubba weyne ku taala ama jaleelo ku taala ama geedeebla ku taala ama
قالوا كنت هالي خضرتي لقى سوق كريت تصير عسلي سوى حد نقطة شركة خضرتك كذا وزعها ما أمريكينا وادي كمبرتين هذا قف مرة وهو تاسي ديو تقدر لقاضي يا هو مرة قف كأبي وستادها يمكن أما مركز دم فور ما نقضين يمكن سيكون ليون نقضوا عن تراسيل قريها مرة تمعرنا هذا وحررت وح الله عليه وحلوك يا ليبل وما الآن ربين إنك وش عقيس ورادين يسوي حتى كسيبة تهلفت كيل وصلت كين وإذا أقوانت هذه بين السامي كيلو وإذا الناش أنا الكلام مهم كيو النقطة يعني تهرت بحتى أقوم بين الله إنه تذكر إن أقوانت وش الهرت بحياة معنا قف قد تبص ودي عشان تبص ببوك سو آخري بوك آخري بوك لبعض بوك شنات ساينس كفيزيكس كيمستري علمي فاسكو دغاما halka soo ka baxay diyaas halka soo ka baxay Christopher Columbus halka ka baxay تمام حق Christopher Columbus iyo hebel ba halka mariyo hebel waxa qarxaad soo dhigtay waxa sidoo laga shaqeeyo magaalada yani ma buugaag soo akhriyo kombiyuutar soo akhriyo xisaabaad suuq magaalada laga shaqeeyo magaalada maxaa laga shaqeeyo xirfad aqoontan soo dhigna xirfadda ma leh kalluun bad laga soo saaro noqon sarka jaacad ka soo baxday aqoontii magaalada soo baxday because aqoontaani xirfad ma leh lagu shaqeysto aqoon lagu ma shaqeysto aqoontu maskaxdii kurisa aqoontu waxay ku furfurtaa aqliga aqoontu waxay ku furtaa inaad ogaato waxa dunida ka dhacay taas waa aqoonta shaqo ma qabato kama hadlayo kaliya shaqada farsamada ee mechanic iyo daar la dhisayo xitaa tan kale xafiiska maamulka wax buug laga soo akhristo la ismaamulaa ma jiro xirfad baa loo baahan yahay aqoonteena xirfad baa loo soo dhigo معلم بس يقول ده استول تاج أما جامعة النقطة ما يسكول وحبوه هذا أما معلمات وهذا شا أرضينا وحبوه قرطاوي شنو أنت بس ودوا الحقوق يصير كذا ده شق ده محط طبعا وحنا قام قرتي واحد يسوي بلا بصير أقونت وين تبلغون الله وهنا أقونت حرفة صوية حرفتنا ما هتنق عنك حتى حرفتنا مسكعة حرفتنا فكرك قف وين وحبرتها مهمة لكن سينو برتصد وحلوة برتها مهمة حرفتها فكرك حرفتها دقيسة حرفتك سيدة تدك الله معاملها حرفتك سيدة حريرك الله صنعيها حرفتك فهمك سيدة تدك الله رغمه تيك رأي يدك عنك دك وسيد رب قف وين وهرت حرفتك عماد يقانا سكول كتونها كصابحة ده هو مهم تاسنا وامد قف كان أقوانت برتها ده سامي محوك لوسية نواه وحك لوسية ونواه تدك أقوانت برتماء باب الله وأنني يقارا قوف سيدة ونولي برهذا نكستو أقوان برتها إنه كل واحد مسوي ذكرنا يقوليو سداد عرورة سجال عرورة طبعا عرورة هي طبعا كلود المادرتين ملك لكيمي هي أيدة أيوة قف مكر أقوام برت أنت وكسي بحية قولوا وين سداد هندراب له وصول فنايا كان يجير نو يري قولوا يسعد ما ساعته عدل ما نولا كوا كلا ما سينولا ومني جارب في سبوع الحرية وحوي تد أبابلنا والسد تجمع أبابلنا سداد كنا كوكيني كرتا تو مركز وحلا عنده سومالد waxay ku mahmaahi jirtay qofka jid ma la martay jidii ma la cunto haddaan dadku inta jidii kula cuno lagu fadhiisano wax lagu cuno dadka ka qayb galin waa adkaas ma halka iga gartoon soconayso ma abaabulin shakhsi baanna sibabad mutaxaasidnimo inuu jirto inagu baaba isku filan wixii hada wararkeena qaamta ku maqnaayay hableena qaamta ku maqnaayay la taksoo la soo korinay inaga isku filan ma abaabulin dad isu tagay manihi saameyn badan yeelan mayno because marka hore aan dadkiiba ka tirsanay marka intaas waa mid laakiin mid daaman karta xal badan oo iman kara wanaag oo horumar laga sameyn karo xalka koowaad waa maxay waa in laga soo bilaabo dhalinyarada markay ardayda ama ardayda dugsiyada ha noqoto ama ardayda jaamacada oo loo soo diyaariyo nolosha dhabta ah dowlad dhabalay noo soo diyaariyo inagoo socono buug sitoona wuxuun akhriyayna baa lagu soo dhexdaayay magaaladii dawataas xageed ka bilaabaysa meel ka bilaabay garamaysa in la soo diyaariyo ayaa muhiim مرينا هنا 10 حسكوا أنفعنا والسلام عليكم إن أنت رايون قبيلة أورون إسقطنا إن أنت رايون قبيلة أورون إسقطنا كلكوا بينو لا تايلين